bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta le soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada madasheena hoyga horumarka magacaygu waa shaakir akhyaar waxaan ahay samafale jecel dhalinyarada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah waxaa mahad iskale mawlihii meeshaan lagu kumiyey marka labaad waxaan rabaa walaal adig inaan kaaga mahad celiyo inaad madasheena mar kale soo boqotay ee mahadsanid haddaa meesha ku cusub tahayna ku darsa kanaalka insha allah kama shalaayay doontida mawduuca maanta idiin wada oo meesha waxaan ku qoray murugada aamusan ama murugada aan la maqan ama dhibaatada ay leedahay dhibanaha aan la dhageysanin dhibanaha waxaa la yiraahdaa qofka dhibaato ku dhacday waa qofkaas dhibana ah hadii la dhageysan waa marka dhibaatada ay leedahay rabna inaan maanta meesha ka hadalno dhageysiga macnaha muhiimadiisa inaan jeclaan lahaa bulshadeen inay dhageysiga badiso bulshadeen inaysan dhageysiga ku fiicneen idinka waa ogtihiin sir qarsoonna ma ahan taas laakiinse faa'iidada uu dhageysiga leeyahay maanta waxa ka hadlayna ma ahan waxaa rabo inaan maanta idin kala hadlo waxa arinta muhiimka ah oo ah dhibaatada ay u geysan karto dhageysi la'aanta qof maskiin ah oo dhiban ama qof ay xaaje la soo diristay waxa ka soo qaada adiga arrinaa kugu dhacday arrin murugo leh kula soo diristay xaaja ka xumaatay qalad ka dhacay laakiinse waxa dareemaysaa qof u sheegato oo arrinta dhageysanaya inuusan jirin arrintaas marka hadday kugu dhacday sidee dareemi lahayd adiga iska soo qaad walaal marka midda koowaad waxaa dareemi lahayd isla xanuunka u jeedaa xanuunka xaajadan kula soo diristay inuu ugu sii siyaadi lahaa maadaama qof la qaybsatay aad haysan midda labaad waxaa waa dareenkaaga inaan la daneyneynin sidoo kale waa soo sheegnay aad dareemaysaa oo macnaha xil iskama saarayaan aad leedahay qofkan xanuunka ku hay uma jeedin miya inaad wax u sheegatid inuu rabtid ma fahmayo miya ma dareemayo miya isleedahay cudurkii walwalkii iyo cabsidii ma arkin oo qaladkii yaraayo ka dhacay kula sii weynaanayaan maadaama macnaha qofka qafiifiyay aysan jirin iyo waxa la wadaagtid marka aaminaad daraa kugu dhacaysa ma jeeda waxa isleedahay qof kasta maadaama isleedahay qofkan hadaladu sii sheega ama kaama dhageysanayo ama aaminaadiya kugu yaraanaysa qofkan u jeeda waxaan ma la qaybsan karaa mise lama qaybsan karo isweydiinaysa marka aaminaad daradii kugu weynaanayso iyo midda ugu dambeyso saaxiib la'aan iyo kalinimo dareemtaa waxaa dareentaa saaxiib la'aan inaad tahay iyo kalinimo maxaa yeelay waxa saaxiibtinimada lagu yahay kaliya in macnaha in mararka baashaalka bis ma ahan in xoogaa yar lacag la isiiyo ma ahan waxa waaye mararka ay murugada qofka haysato oo dhibaatada ay jirto oo la isku baahan yahay dhigtaada qofka inaad deemisid oo dhageysatid marka saaxiibtinimo iyo kalinimo dareemaysa wax ku dhageysto hadaa weysid macnaha saaxiibada kaliya ahna ma ahan qof kasta dariskaaga ha ahaado qof meel kale iska barataan ha ahaato laakiin kalinimo dareemaysa wax arintaada ka dhageysto hadaa weysid marka dhibaatada waa dareenay dardaaranka maxaa ay kula dardaarmay waxa soo dhibaato ah macnaha waxa idin leeyahay daawadiisa dhageysi waaye waxa soo dhibaato ah daawadiisa waxa waaye dhageysi waxa u noqotaa marka walaalahaaga muujeeda qofka walaalka ah adiga hadii arintaas kugu soo dhacday ama ka cabsanaysa inuu kugu dhacdo qof walaalka ah oo dhibana ah ha u ogolaan arintan oo kale inuu ku dhacdo qofkaas walaalka ah waxa u noqotaa dawadan aan sheegnay oo dhageysiga ah inaa siisid isku day dhageyso qofkaas midda koobaad waxa waa qofkaas inaa dhageysatid midda labaad waxa murugada in aad la qaybsatid oo ka qafiifisid dhageysigaas wuxuu u yahay murugadii adoo la qaybsanayo murugadii cabsidii iyo walwalkii oo dhan ka yareynaysa haduu macnaha maadaama uu ku sheegtay uu adiga kugu fardabaxay oo kugu buray si fiican uga dhageysatay adigoona ka dhexgelin hadalka waxyaabo kale weydiinaynin waa yaabanaha iyo sidee u dhici kartaa iyo maxaa u sameyn kartaa iyo adoon waxba dhiheen qofka inaad ka dhageysatid oo macnaha uu kugu buro uu kugu fardabaxo uu kugu sirbaxo ma jeedaa inaad ka ogolaatid oo qofkii aad la qaybsatid murugadaas Allah kugula talinahay oo qofkaas tan saddexaad wehel iyo walaal u noqotid wehel iyo walaal ina u noqotid markasta macnaha qasama qofka tale ina siisid mararka qaarkood ma jeedaa qofka taladii ma jeeda markuu kugu fardabaxo arrinta ku sheegto asaga macnaha xalki asaabi heli doono macnaha wuxuu u baahnaaba waxa laga yaabaa inay tahay murugadan qofku iskaga qafiifiyo wuxuu la qaybsaday inuu helo kadib markaas sheegitaankaas uu ka sheekeynayo arrinta asaaba dareemi doono macnaha xalala ku soo dhacayaan hadii uu ku weydiistana talo maasha Allah adiga laakiin waxa laga rabo marka koowaad waxa waa inaad dhageysid midda labaad aad su'aal yar aad weydiisid haduu macnaha uu u baahdana wax dhageysto dhageysiga ka dheeraad oo talo u baahdana inaad talada siisid hadii kale tan xal kale isla sii raadisiin iyo qof talada macnaha idinka sii fiican hayo la waxaysiin
marka intaas ay idinkugu soo gabagabeynaa maanta waxaa idinkugula talinaa marka walaalihiin u noqdo qof ee wax ula wadaagi karaan oo murugada ka qafiifiyo anigana insha Allah qofkii wax ila wadaagayo midda kale oo muhiimka ah waxaa waaye qof hadduu wax kula wadaago wax isku daydaa in ay sirtaas adiga ku koobnaato hadduusan kuu fasaxin qofkii in aad la wadaagto qof kaleeto haddii lacal ay dhacaysan wixii kaleeto in sii sheego ayadoo sir ahayn waxaan sir ahayn oo kaleeto qiso kale haddii in sii sheego ay dhacayso qofka magaciisa ha sheegin oo dadka laga dhex aqoonsan marka waxaa idin kula talinaa dadka walaalayaal oo arrintaas inaad ku baraarugtiin lagu baraarugsano arrintaas inaad ku baraarugtiin oo dadka qaarkood aad dhageysatiin haddaad dareentiin aniga mawduucan waxa ugu kalif waxaa waaye meelaha qaarkood waxaa ka dareemay dad badan inay arrimo haystaan oo macnaha dhibaato la daala dhacayaan ama xoogaa qoraal yar ha ahaato ama hadal yar ha ahaado ama wajigooda dadka qaarkood ha ahaado laakiinse sidaa meelaha qaar ka dareemay waxaa jirto dad culays uu saaran yahay culeyskana qof ay la wadaagaan la'san yihiin sida aniga isleeyahay ayaka keligoodna siday u xalin lahaayeen aanan aqoonin laakiinse la wadaagaas bisaa xal u noqon lahaa ayaka inay la wadaagaan qof inay la wadaagaan xal u noqon lahaa marka aniga waxaa isiri adiga keliya dadka oo dhan wada dhageysan karta anigana qof xoogaa yar haddaa si sarbeeb ah wax u weydiiyo su'aal u weydiiyo waxaa asaga ka sugaa in hadduu wixii inuu ila wadaago uu rabo asaga inuu ii sheegto dabcan qofku ma qasbi kartid wax ii sheeg inaad dhahdid ma ahan adiga aad ka qasabto sheekada qof walbaba sheekaduu rabo asaga inuu kuu sheegtaa looga baahan yahay adiga waxaa ugu deeqi kartaa bis dhageysigaaga iyo caawintaada iyo ujeedaa inuu sirteeda